degmada Qulujeed iyo nawaaxigeega ayaa maanta laga qaybiyay 500 oo qoys oo loogu talagalay mucaawinada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu talagashay dadka abaaruhu saameeyeen inay ku gargaarto dadweynaha deegaanka Qulujeed iyo waxgaradka deegaankaas ayaa sheegay in xukuumaddu guud ahaanba sidii looga baahnaa inuu uga soo jawaabin gargaarkana uu yahay mid aan ku filnayn dadka jiidaasi ku hareeraysan ee deegaanka Qulujeed maayirka degmada Qulujeed Maxamed Hodoon Cismaan ayaa sheegay mucaawino ay soo dirtay xukuumadda Soomaaliland oo loogu talagalay 500 oo qoys oo kamid ah dadka abaaru ay ku dhufteen ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada Qulujeed wixii yimidna wuxuu ahaa 200 oo qoys raashinkood waxaan maanta u qaybinayaa marka 200 oo qoys raashinkood 500 oo magaalada dhexdeedii iyo dadka inta leeg ee soo guuray ee degay meesha la yiraahdo Didid iyo Dharable ee socotada ay xoolay ka soo madheen kolkii horena ka dhaadhacay Elis banka Elis bay kolkii hore ka qulleen ilaa karuuray tageen dabeetana way soo noqdeen maantana waa kuwa u fadhiya baahi markii la yiri raashin baa Qulujeed keenay halka baahi bay u soo fadhiisteen annagu marka ma qaad karnaa waxa weeye waxaan sameeynaa galaan u gaadhay inaynu gaarsiino wixii soo gaarayna waynu garan sidoo kale cuqaasha iyo maayir ku xigeenka Qulujeed oo iyaguna deegaanka jirjirka oo ka tirsan degmada Qulujeed ka qaybinaya deeqta la mid ah ayaa iyaguna sheegay in 200 oo qoys oo kamid ah dadka abaaru ay ku dhufteen 15,000 degmada Qulujeed dadka ku nool anigoo ah gudoomiye xigeenkii degmada waxaan joogay halkan jirjir waxaan u qaybinay 200 oo qoys raashinkoodii waxaan u qaybinay 700 oo qoys baan isku soo wada duubo dadweynaha deegaanka iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanadaasi ayaa sheegaya mucaawinadan la soo gaarsiiyay inay ahayn mid iyadu dadka wada gaadhay iyadoo ayna ku filnayn deegaan ay ku nool yihiin 15,000 oo qoys mucaawino gaadhaysa 500 oo qoys in laga geeyo Wahori Axmed Hori Hon Cable TV degmada Qulujeed